sooyaalkii madaxweyne cali mahdi maxamed iyo waxa lagu xasuusan doono. cali mahdi maxamed waxa uu ku dhashay tuulada cadow uul ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe qiyaastii 1938 waxaana yaraantiisii la keenay xamar oo uu ku barbaaray. wuxuu waxbarashadiisii asaasiga kusoo qaatay isla magaalada muqdisho isagoona heerka waxbarashada dheeriga ah kusoo dhammaystay dalka masar. sanadii 1969 waxa uu ka mid noqday xubnihii golaha baarlamaanka iyadoo deegaan doorashadiisana ahayd magaalada jowhar oo waqtigaasi ka tirsaneyd gobolka banaadir. baarlamaanka qaranka wuxuu ku biiray isagoo da'yar wuxuuna sidoo kale uu hawsha siyaasadeed u barbar socday arrimaha ganacsiga. uu ka mid noqday maalqabeennada waaweyn ee macruufka ah Soomaaliya. Allah u naxariistay cali mahdi xilliga xukunka askarta wuxuu bilaabay shaqada dowladda wuxuuna ka mid noqday madaxdii waaweyneed ee wasaaradda caafimaadka maamuleysay. wuxuu ahaa madaxdii la dagaalantay cudurka duumada iyo agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka. markii ay dowladdii kacaanka bilaabatay caburinta iyo eexsiga qabiilka ku dhisnaa, cali mahdi wuxuu u xirka goostay inuu ku biiro siyaasiyiin doonaysa in dalka iyo dowladda lagu toosiyay wadada sharciga ee dastuuriga ah kuna dhisan cadaaladda iyo sinaanta bulshada. wuxuu aakhirkii isaga iyo siyaasiyiin kale ay ku dhawaaqeen 15 bishii shanaad 1990 ururkii manifesto ee dhabaha u xaaray in laga takhaluso awoodihii kala talisnimada siyaad barre. balse ujeedada ururkaasi ayaa ku salaysnaa in si nabad ah xilka uu ku wareejiyo siyaad barre lana dhiso dowlad loo dhan yahay. 7 bilood kadibna jabhado dadweyne ay xukunkii ka tuureen siyaad barre. burburkii dowladdii kacaanka 26 juun cali mahdi wuxuu juhdi geliyey in dalku noqdo mid la isku soo celiyo waxaana qabsoomay shirkii loogu doortay madaxweynaha Soomaaliya isagoo xilligaasi ka maqnaa madashii shirka oo lagu qabtay dalka Jabuuti 1991. dowladda Jabuuti looga dhawaaqay ee cali mahdi lagu doortay waxaa ka hor yimid Jenaraal Maxamed Faarax Ciidiid oo isagana rabay in loogu dhawaaqo hogaamiyihii bedelay siyaad barre. beesha caalamka waxay soo dhaweysay dib u heshiisiinta iyo dowladda ka dhalatay Jabuuti ee madaxda loogu dhigay beesha caalamka waxay soo dhaweysay dib u heshiisiinta iyo dowladdii ka dhalatay Jabuuti ee madaxda looga dhigay mudane cali mahdi. nasiib darase waxay ka dhacday dowladdii iyadoo wada hanaan maamulkii dalka in magaaladii muqdisho ka qarxo dagaal sokeeye oo ay isaga hor yimaadeen xoogagii afka dhulka daray kaliya taliyihii siyaad barre. dagaalkaasi wuxuu dhacay 1992 wuxuuna sababay burbur barakac iyo inuu fududeeyo abaarihii wadanka ka dhacay. dagaalkii 4 bilood oo ahaa dagaal aad u xoog badan inta taariikhda laga og yahayna Soomaaliya horey u soo marin wuxuu sabab u noqday inuu wadanka ka bilaabo faragelin shisheeye oo ilaa hadda Soomaaliya la ildaran tahay. muddadaasi kadib labadii hogaamiye waxay bilaabeen waan iyo xal lagu dhameynayo dhibaatadii wadanka ka dhacday. dabadeedna waxaa la isugu tagay shirkii Addis Ababa ka dhacay iyadoo wax u eg labadaasi hogaamiye ay bilaabeen tanaasulaad aan hirgelin. geeridii Jenaraal Ciidiid kadib cali isna wuxuu ka tanaasulay sheegashada inuu madaxweyne ka yahay wadanka wuxuuna aakhirkii ka mid noqday hogaamiyaashii taageerada weyn siiyey inuu qabsoomo shirkii carte ee Jabuuti taasoo lagu doortay mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan. muddooyinkaasi kadib cali mahdi wuxuu siibtay inuu noqdo oday Soomaaliyeed ee saameyn iyo qayb weyn ku leh nabdeynta iyo dib u heshiisiinta. wuxuu door ka qaatay shirkii Mbagati oo u arkayay maslaxad Soomaaliyeed iyo fursado Soomaali dib loogu mideyn karo. cali alla ayaa oofsaday waqtiyadiisii ugu dambeeyay wuxuu juhdi weyn geliyey isu keenida beelaha Soomaaliyeed oo uu ku bilaabay dib u heshiisiinta qowmiyadda Mudulood taasoo ku guuleystay. naqshadiisa waxay ku saleysnayd inuu heer Soomaaliyeed gaarsiiyo. wuxuu ka bilaabay beelihii Muqdisho deganaa isagoona dhinaca kale xiriiro toos ah la sameeyay hogaamiyaashii dowlad goboleedyada sanadkii tagay ay yimaadeen xamar. cali mahdi aas fiican ayuu u dhigay qarannimada Soomaaliyeed hase ahaatee tallaabooyinkaasi waxay u baahan yihiin hogaamiyaal dhammaystira.